berbera waxa ka jira dhaxal wareejin iyo boob weyn khidmadda sida loo qaybsanayo boqolkiiba 70 kamiriga saale boqolkiiba 30 qarankiiba aan u reebnay iyadoo aan runtii sharcina loo marin unconstitutional ah oo waxa weeye awoodihii dastuuriga ahaa baarlamaanka siiyay sharciguna la baalmarayo shaybaadkii qaranka ee $2 milyan galeen ee isagana la furay qaybta dawada cuntada iyo waxa weeye cosmetic isaga laftigiisa waxa qaadatay shirkad la Contacna berbera oil terminal waxa ka shaqeeya 13 qof oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo ku dhawaad 10 sanadood ka shaqeynayay shaybaadka waxa lagu maalgeliyay adduun gaaraya $1.7 milyan waxaana maamulkiisa gacanta ku haysta dawladda Soomaaliland waaxda shaybaadka waa ilaha dakhli ama dhaqaale ee kaydka haamaha shidaalka uu ka soo galo lacagta iyo dhaqaalaha ay u asaasan tahay hay'adaasi inkastoo musuqmaasuq hareeyay muddooyinkii u dambeeyay xukuumaddu waxa ay ku wareejisay si aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn shirkad ajaanib ah oo ay wakiil ka yihiin cid gaar ah oo xukuumaddu ay siisay waxa kaloo ku jira ceeb taa ka sii daran maamulaha madaarku maamulaha haamaha kaydka shidaalka wareegto uu soo saaray oo la yiraahdo sumadeedu tahay BOT GM 0054 oo soo baxday 05/06/2024 wuxuu sheegayaa khidmadda laga qaado maraakiibta berbera keenta shidaalka foostadii $0.5 oo been cad berbera oil terminal waxa ka shaqeeya 13 qof oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo ku dhawaad 10 sanadood ka shaqeynayay shaybaadka waxa lagu maalgeliyay adduun gaaraya $1.7 milyan waxaana maamulkiisa gacanta ku haysta dawladda Soomaaliland waaxda shaybaadka waa ilaha dakhli ama dhaqaale ee kaydka haamaha shidaalka uu ka soo galo lacagta iyo dhaqaalaha ay u asaasan tahay hay'adaasi inkastoo musuqmaasuq hareeyay muddooyinkii u dambeeyay xukuumaddu waxa ay ku wareejisay si aan sharciga iyo dastuurka waafaqsanayn shirkad ajaanib ah oo ay wakiil ka yihiin cid gaar ah oo xukuumaddu ay siisay 1 May 2024 baa si rasmi ah loo wareejiyay shaybaadka haamaha shidaalka waxa hadda u sareeya nin Kenyan oo la yiraahdo CGR Ronaldo shirkadaas oo magaceeda la yiraahdo Inspectorate qalab cusub Soomaaliland may keenin maalgelin kuma sameeynin kaydka haamaha shidaalka waaxda shaybaadka wasaaradda ganacsigu waxay ugu wareejisay si aan sharcina ahayn shuruud lahayn oo runtii tacajab keenaysa inta badan marka kambaniyada dibadda inaga yimaada ay la wareegayaan institution waa inay jirtaa baahi qalab waa inay jirtaa baahi aqooneed waa inay jirtaa baahi xirfadeed oo loo baahan yahay inta midina ma jirto markii la wareejinayay dekada berbera waxaynu ogeyn inay baahi jirtay oo ahayd in la gelinayo maalgelin laakiin maanta kaydka haamaha shidaalka waaxda shaybaadka shaqaalaha jooga waa dad xirfad leh khibrad leh shaqada ku filan qalabka yaalaana waa qalab awood u leh shaybaad kamerigu wuxuu leeyahay kaliya ta magac laakiin lamu imanin qalab iyo shaqaale wax kala toona celcelisahan waxa yimaado bishii 6 markab oo sida shidaal berbera waxa laga qaadaa foostadii kasta $1 waxaana ka soo xirooday celcelisahan adduun gaaraya $300,000 wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka ganacsiga oo sumadeedu ahayd WGD 03/0058/2024 oo soo baxday 9 bishii 6/2024 ujeedadeeduna ahayd sida loo qaybsanayo khidmadda shaybaadka shidaalka ayaa lagu cadeeyay in shirkadani ajaanibka ah la siinayo lacagta ka soo baxda shaybaadka shidaalka boqolkiiba 70 halka qaranka Soomaaliland loo qoondeeyay in loo reebo boqolkiiba 30
ma cadda sababta loo siinayo shirkadaasi iyo ujeedada lacagta intaa leeg loo siinayo marka la xisaabiyo boqol leeyahan waxay noqonaysaa kambanigaasi $300,000 markuu adduunkaasi yahay bishii in iyadu $210,000 qaadanayso bal hadda ka warrama qalabka inaga ale shaybaarka inaga ale shaqaalaheennii baa jooga xirfadda lahaa niman Kenyaana baa intay yimaadeen oo berberi guri ka karaysteen oo magac la yimaadeen ayay haamaheennii iyo shidaalkeennii iyo shaqadii qaranku qaban karayay 10 sano ba socotay ayay intii la wareegaan bay 7% iyaga aqaladooda iyagoo jooga ugu dhacaysa macnaha chief ocha dadkii ku xagaasanaya berbera deegaanka ahaa ee 41 degree kuleelka gaaraya dhididku indhaha ka galay ayaa iyagoo arkaya Kenya lacagta intuu ururiyo qaaraan Kenyaanka dhaamin oo inoo eego reer Soomaaliland ay la qaybsanayaan runtii waa arrin aad iyo aad yaabkiisa u leh nasiib darro shaqaalaha xirfadda lahaa ee aqoonta lahaa ee muwaadiniinta ahaa ee xagaaga iyo kuleylka ku samraya 10 sanadood waxa lagu wargeliyay in toddobaadkan ay fasax yihiin oo la eriyaayo oo lagu qoraayo waxa kale waxaana waaxda shaybaarkana waxa imanaya dhammaanteed departmentnadeeda nimana jaanib oo Kenyan nasiib darro shaqaalahaasi caafimaad may ku qabin fasax dheeraada kumay qabin lacag dheeraada kumay qabin bal waliba ragga qaar kamida ayaa kimikada shaqaday ku shaqeynayeen ay damage garaysay xubnahooga taranka inaanay ilaa hadda maanta aanay caruur lahayn markii ay tigeen dhakhaatiirta dibadda waxa loo aaneeyo loo sheegay shaqada ay hayaan inay sababtu tahay xaq lama siin cawad qab lama siin cidi uma oga wata Kenyaanka CJR Ronaldo ayaa laga door biday ninkii ku xiniya beelay ku xoolo beelay muwaadiniintaas waa la fasaxaya shaqadana waa laga eriyaa toddobaadkan aanay taasina dhacaysa Kenyan baana la wareegaya kambaniga terminal oilka maamulaha haystaana waxaan u mareynayaa isaguna iyagu ka mid noqonaya isaguna inuu magac kale ku hawlgeli doonaan filayaayo Kenyan marka waa masiibo weyn waxa ceeb iyo fadeexada in warqadaas oo soo baxday bishan June oo ka soo baxday xafiiska wasiirka ganacsiga Somaliland ayaa si aan xishood lahayn oo cadaan ah wuxuu leeyahay ujeedo khidmadda sida loo qaybsanayo 70% kambaniga saale 30% qarankiiba aan u reebay iyadoo aan de runtii sharcina loo marin unconstitutional ah oo waxa weeye awoodihii dastuuriga ahaa baarlamaanka siiyay sharciguna la baalmarayo warqadan waxa kale oo ku jira ceeb taa ka sii daran maamulaha madaarku maamulaha haamaha kaydka shidaalka wareegto uu soo saaray oo la yiraahdo sumadeedu tahay BOT GM 0054 oo soo baxday 05/06/2024 wuxuu sheegayaa khidmadda laga qaado maraakiibta berbera keenta shidaalka foostadii $0.5 oo been cadda iyadoo $1 ay tahay ma garanayo halkii ku dhici jiray 0.5 ka kale oo dhadinu galana way tahay waxa warqadan ka soo daba saaray isaguna wasiirkii ganacsiga oo sheegay isla digreetadii taa ka dambeysay in 9 June buu isna cadeeyay yiri lacagta kaydka haamuhu ay ka qaadaan foostadii waa $1 ee maaha 0.5 ee dollarka ku qabta shirkadana dollarka ku siiya berbera waxa ka jira dhaxal wareejin iyo boob weyn waxa jira shirkado badan oo gaar ah oo la wareegay mashaariic ay muwaadiniin qaban karayeen waxa iyaduna aad u yaab badan in shaybaarkii qaranka ee $2 milyan galeen ee isagana la furay qaybta dawada cuntada iyo waxa weey cosmetic iyo isaga laftigiisa waxa qaadatay shirkadda la contactna sharci aanu marin oo iyaduna jirta waxa kale oo jira mashaariic badan oo halkii dhalinyarada hoosta xilliga siiyay xisbiyaha waxaanu soo jeedinaynaa kow in golaha wakiiladu gutaan waajibkooda oo ay joojiyaan heshiiskana sharciga ahaan ee lagu wareejinayo shaybaarka haamaha shidaalka maadaama la baalmaray awoodda iyo waajibaadka golaha wakiilada ee ku cad qodobka 3 firqadiisa 3 laba
waxaanu ku baaqaynaa in shaqaalaha laga eriyin shaqadooda 10 sano ku soo jira shaqadaas ee khibrad iyo aqoonta leh oo la dhowro xeerarka shaqaalaha oo lagu bedelin ajaanib Kenyaana oo aan baahi loo qabin 3 in la geliyo kaydka haamaha shidaalka hanti dhow si loo baaro tasarrufka awoodeed iyo maaliyadeed ee uu sameeyay maamulka haamaha shidaalka oo ay dul hoganayso ceebo iyo fadeexada musuqmaasuq 4 in la joojiyo wareejinta shaybaarka haamaha shidaalka ee lagu wareejinayo shirkadda ajaanibka ee macaashtoonka ah oo loo daayo gacanta qaranka 5 in dadka reer berbere ee ku nool duruufaha nololeed cimilo iyo dhaqaale laga joojiyo culayska iyo dadka ajaanibka u badan ee dusha laga keenayo fursadaha shaqo ay qaban karaan oo muddooyinkan dambe looga sadburinayo ajaanib aanay shuruucda ogolayn shaqo muwaadin qaban karo inay qabtaan 6 waxaan ugu baaqaynaa reer berbera in ay doorashada qaataan kaalin isbedel doon oo ay doortaan xisbiga wadani si xuquuqda